السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قيمها إيا قايها بدن رمضان كريم دمانتين موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay injineerad dunida macruufka ah oo nashqado dhismo oo cajiib ah caalamka ku soo siyaadisay waa injineerad Zaha Maxamed Xuseen Al-Luhaybi oo ku magac dheer Zaha Hadid sidoo kalena lagu naaneyso boqoradii birta iyo dhismayaashii qalocsanaa She's regarded as one of the industry's best. Was the first woman to win the Pritzker Prize, architecture's highest honor. One of the most prolific and lauded architects of our time. Zaha waa injineerad Ciraaqiyad ah sidoo kalena haysatay dhalashada dalka Ingiriiska waxay ku dhalatay magaalada Baghdad 31 Oktoobar 1950 aabaheed Maxamed Xuseen Hadid wuxuu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii xisbigii lagu magacaabi jiray xisbiga wadaniga ah ee dimuqraadiga ah ee Ciraaq wuxuuna soo noqday wasiirka maaliyadda ee dalkaas sanadihii 1958 ilaa 1960 Zaha waxay ilaa iyo dugsi sare ku soo qaadatay magaaladeedii Baghdad waxayna 1971 shahaado jaamacadeed xisaabta ah ka qaadatay jaamacadda Ameerikaanka ah ee magaalada Beirut ee dalka Lubnaan waxay sidoo kale 1977 ka qalin jabisay iskuulka jamciyadda handasada dhismaha ee London waxayna macallin caawiye ka noqotay kuliyadda injineeriyada ee iskuulkaasi waxayna sidoo kale macallimad ahaan u booqatay oo muxaadarooyin badan ku qabatay jaamacado badan oo dalalka Yurub iyo Mareykanka ku kala yaala oo ay ka mid yihiin jaamacadaha Harvard, Chicago, Hamburg, Ohio, Columbia, New York iyo jaamacadda Yale. Zaha Hadid waxay 44 wadan ka fulisay mashaariic 950 mashruuc gaaraya waxayna nashqadaha ay sameysay ku caan baxeen kuwa badanna uga duwanaadeen qalqalooca ay leeyihiin iyo sida cajiibka ah oo ay u sameysan yihiin waxayna sidoo kale shahaado sharaf ka haysataa boqoradda dalka Ingiriiska waxay ahayd qof dumar ah tii ugu horeysay ee abaalmarinta handasada ay Pritzker ku guuleysatay abaalmarintaasi waxay dadka injineerada ah uga dhigan tahay sida tan Nobel Peace Prize oo kale sanadkii 2000 wixii ka dambeeyay waxay sanad walba ku guuleysanaysay abaalmarin oo xataa 12 abaalmarin ayay hal sano gudihiisa ku guuleysatay waxay heshay qadarin iyo abaalmarino badan oo dhanka injineernimada ah waana qadarin iyo abaalmarino oo aysan dumarka injineerada ah ee ayada ka horeeyay aysan weligood helin ayadoonan 30 sano galin ayay Zaha Hadid shirkadeedii ugu horeysay ee nashqadeynta dhismaha ka furatay magaalada London shirkadaasi maanta waxa u shaqeeyo dad 350 qof ka badan bilowgii waxay howlaheeda ku socdeen si tartiib ah kadibna ugu dambeyn wuxuu dalab uga yimid dalka Jarmalka shirkad Vitra la dhaho ayaa waxay Zaha Hadid ka soo dalbatay sanadkii 1993 inay u nashqadeyso guri dabdamis ah dhismahaasi wuxuu ahaa mid cajiib ah oo magaceeda banaanka keenay caanna ka dhigay kadibna waxay 1994 nashqadeysay guriga Cardiff Bay Opera House balse dadkii maalgelinayay ayaa joojiyay maalgelinta dhismaha waxayna sheegeen habka guriga loo nashqadeeyay inuu yahay mid ka duwan dhaqanka Wales ee muxaafadka ah thaqaafa ahaan iyo dhismo ahaanba taasi waxay dhibaato u keentay Zaha Hadid shirkadeedana waxay gashay khasaaro badan sanadihii 90-meeyadii balse ugu dambeyn way ka gudubtay kadibna waxay nashqadeysay xarunta Rosenthal ee fanka casriga ah ee gobolka Ohio kaasina wuxuu ahaa mashruuc dhismo kan ugu horeeyay oo ay dalka Mareykanka ka fuliso wuxuuna ahaa madxafkii ugu horeeyay ee Ameerikaan ah oo ay qof dumar ah nashqadeyso journalka New York Times ayaa wuxuu dhismahaasi ku tilmaamay inuu ka mid yahay dhismayaasha ugu muhiimsan ee Mareykanka ee dagaalkii Qaboobaa kadib waxay nashqadeedaas ku heshay 2 abaalmarinta Machadka Britishka ah ee nashqadeynta dhismayaasha iyo abaalmarinta nashqadeynta dhismayaasha ee Mareykanka waxaa kale oo ay nashqadeysay maxadada tareemada laga raaco ee magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska waxaa kale oo ay nashqadeysay xarun lagu dabaasho oo magaalada London ku taala waxay u nashqadeysay qaab qaloocan oo sidii hirarka camal u eg
waxay meeshaasi ahayd meel loo diyaariyey ciyaaraha olombikada adduunka. waxaa kaloo ay nashqadeysay xarunta dhexe ee shirkadda gawaarida soo saarta ee Jarmalka ah ee BMW ay ku leedahay magaalada Leipzig ee dalka Jarmalka, taasoo ay ku heshay xataa abaalmarinta Riva Sterling Prize oo ah abaalmarin la siiyo injineerada nashqadaha dhismo ee cajiibka ah la yimaada. waxaa kaloo oo ay Zaha nashqadeysay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Tokyo. garoonka cabir ahaan waa 290,000 oo iskuweer mitir, wuxuuna qaadayaa 80,000 oo qofood. iyo xarunta Feno ee sayniska ee magaalada Wolfsburg ee dalka Jarmalka ku taalo. iyo buundada Sheikh Zayed oo ku taalo magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. iyo maxaddo tareemada mitrooga ah laga raaco oo ku taalo magaalada Oslo ee dalka Norway. iyo xarunta Heydar Aliyev oo ah mid ka mid ah xarumaha dhaqanka ee dunida ugu caansan oo dalka Azerbaijan ku taalo. waxay sidoo kale nashqadeysay garoonka kubadda cagta ee Al Wakra oo dalka Qatar ku yaala, kaasoo loogu talagalay inuu noqdo mid ka mid ah garoomada koobka adduunka ee sanadka 2022. sidoo kale waxyaabaha Zaha Hadid ay nashqadeysay waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Beijing. guud ahaan 950 mashruuc dhismo ayay Zaha Hadid ka fulisay 44 wadan oo dunida ku yaala. ugu dambeyn, Zaha waxay gaartay guulo dhanka shaqada ah, balse ma aysan guursan weligeed, ilmana ma aysan dhalin. waxay cumrigeeda dhan u hibaysay shaqadeeda iyo injineernimadeeda, taasina waxay ahayd mid ayada ikhtiyaarkeeda ah. Zaha Hadid waxay dunida ka tagtay 31 Maarso sanadkii 2016 ayadoo 65 sano jirto, waxayna ku geeriyootay magaalada Miami ee dalka Mareykanka, oo waxay u dhimatay wadna istaag. diin ahaanna waxay ahayd qof muslimad ah oo sunni ah, waxayna ka tagtay hanti qiimaheedu ay gaarayso 67 milyan oo poundka Ingiriiska ah. lacagtaasina inta aysan dhiman ka hor waxay ka dardaarantay 500,000 ka mid ah in la siiyo Patrick Schumacher oo ah injineer ayada 1986 ilaa 2016 oo ah marka ay dhimanaysay la shaqaynayay. 2002 wixii ka dambeeyayna qayb ku lahaa shirkadeeda. 1,700,000 oo kunna waxay ka dardaarantay in la siiyo ilmaha ay ayada walaalaheed dhaleen. lacagihii kale ee shaqadeeda ka soo galayna waxay ka dardaarantay in la siiyo shaqaalaha shirkadeeda iyo hay'ad ay ayada sameysay, taasoo dadka ku dhiirigelisa injineernimada iyo hay'ado kaloo khayri ah. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. intaas ayaan kusoo koobayaa taariikhdii koobaneed ee ku saabsaneed injineeradda Ciraaqiyadda ah ee Zaha Hadid. haddii aad muuqaalkan ka heshay kanaalkana aadan hore oga tirsaneen, fadlan subscribe dheh, muuqaalkana like saar, asxaabtaadana la wadaag. aad baad u mahadsantihiin. mar kale waa Axmed Kadiye oo khayr badan idiin rajaynayo. ciao, Ramadaan Kariim.